مولاي صل وسلم دائما 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 دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد. مقعي وسلطان عبد الله محمود معادك من نبي Institute for Political Science and Knowledge. سيدة عادة إنه أهان جدي أنا وطلقلي إن ولا لهن مسلمين تاع جناستنا الصوماليين يبلشوا قيبة ذاك الدوان أنا وطلقلي وأنا بلغاني إن شاء الله أنا سوق لندون عشرة واحتر له أو فائدة له إن شاء الله أنا وطلقلي. marka maanta waxaan rabnaa inaynu la wadaagno ganacsatada Soomaaliyeed iyo waxa way bulshada dhamaan inaynu la wadaagno qodobo yar yar oo kooban si ay wax uga bedelaan ganacsigooda iyo businesskooda. marka insha Allah maanta waxaan rabnaa basically development area inaanu ka qiimeeyno qaabkeebaad u qoran lahayd haddaad u baahan tahay ama haddaad doonayso business plan qorshe ganacsi. waxaan rabnaa insha Allah maanta qodobkaas basically inaan analyze gareyno waxa way dadkana walaalaheena Soomaaliyeed ganacsatadeena qof kasta oo business inaynu la wadaagno insha Allah. marka wuxuu noqonayaa qodobkeena waxa way qaabkeebaad u qoran lahayd haddaad doonayso business plan qorshe ganacsi. marka 8 qodob baan ku soo koobnay hadduu alla idmo. marka 8 qodob waxaan jecelnahay insha Allah waxa way Soomaalidu waxa way ganacsatada insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan haddii aanu ganacsatadeena aynu waxa way khibrado siino aynu aqoon siino aynu waxbarasho siino waxa dhici karta ama dhacdaba in growth economically dhaqaalihi inuu waxa way kor u qabaco ku yimaado waxa way fursado ay meesha yimaadaan opportunity cost inuu meesha yimaado. marka ganacsatadeena waa inoo muhiim in waxa way xaaladda dhaqaale ee suuqa market analyzing ka. marka how to write business plan buu qodobkeena noqon doonaa qaabkeebaad u qoran lahayd haddaad doonayso qorshe ganacsiyeed. marka number 1 haddaan ku hormarno number 1 wuxuu sheegaya executive summary. qofku markuu rabo inuu ganacsi abuurto number 1 waxaa looga baahan yahay in executive summary uu leeyahay. executive summary macnaheedu waxa weeye in uu sameeyo ama uu habeeyo ama uu soo qoro xog company ku saabsan. waa in uu soo qoraa xog company ku saabsan waxaa la yiraahdaa executive summary. waa inuu analyze gareeyaa waa in xogta waxay noqon kartaa maybe waxay noqon kartaa hal page 2 page oo noqon kartaa. marka muhiimadu maaha page 2 page laakiin muhiimadu waxa weeye in uu qofku soo qoro xog kooban oo ka hadlaysa company-giisa waqtigii la aasaasay xilligii la aasaasay ciddii aasaastay ciddii shareholderska ciddii investmentiga cidda boardka ku jira ciddaan boardka ku jirin cidda waxa weeye salvant investiga waxaasoo dhan buu soo qoraya qaabka uu ganacsanayaan dadka shareholderska waxa weeyaan intaasoo dhan buu kaga hadlaa executive summary. marka waa xog kooban oo macadka xog kooban oo ganacsiga uu abuurtay qofka ka hadlaysa weey. number 2 company description title-ka iyo company-gu iyo organization-ka iyo business-ka uu abuuray qofku sidii uu company description u sameyn lahaa. waxa weeye company-giisu wuxuu qabanayo business-kiisu wuxuu ka ganacsanayo haddii company production yahay hadduu company service yahay waxa uu qabanayo title-ku sheeganaya hadduu badeecada soo saarayo haddii waxa wax kala qabanayo waa inuu sheegaa company description baa leedahay. number 3 market analyzing waa inuu suuqii qiimeyn ku sameeyo. haddii qofku company-ga aasaasanayo ama business-ka aasaasanayo uu sameyn karin market analyzing waa ku adkaanaysa xaaladda dhaqaale oo company-giisu ku sugan yahay. marka waa inuu market analyzing waa inuu suuqu qiimeyn ku sameeyo waxa soo saadama la gadanaya adu xagee wax ka soo iibinaysa sidee baad u baahan tahay inaad xogtaadii ama macadkaagii ama aan company-gaaga kor ugu qaadi kartaa sidee company-gaaga suuq u gaarsiin kartaa sidee waxaad wado lagaaga iibsan karaa sidee product-ga u soo saartay dadku ka iibsan karaan badeecadaadu ma tahay badeecad marketing analyzing waxaasoo dhan baa la isweydiinaya. marka suuqu waa muhiim market analyzing waa muhiim. number 4 organizational and management. organizational and management waxay qeexaysaa waa in uu jira level of organization level of management
waa inuu jiraa heerarkii managementiga waa inuu maamulihii sare joogaa waa inuu maamula ku-xigeenka joogaa waa inuu toplineka joogaa waa inuu levelki joogaa waa in waxa weye executive chiefki joogaa waxaasoo dhan waxaa la yidhahda ahraamta qaabka organizationalka managementiga loo sameeyo waa inuu jiraa department of the maamulihii waxa weeye maamulihii operationka waa inuu jiraa maamulihii HR-ka waa inuu jiraa maamulihii CO da operationka waa inuu jiraa maamulihii finance waa inuu jiraa marka ahraam waa inay u samaysan tahay management organizational and management waa inuu company ka jira waa inay shuruuc leeyihiin waa in responsibility jira waa in accountability jira waa in xeer jira waa in jira ethical waxa weeye conduct of the ethical shuruuc iyo dhaqan lagu maamulaayo bahalka behaviorka waxaasoo dhan buuna jiraa number 5 waa caddaynaysaa companygaaga wuxuu yahay ma company service ba mise waa company productionka markuu service program yoqdo qaabab kale loo abuuraya asaga waxyaalaha waxa weeye company serviceka waxa weeye employee-ga yaraanaya waxa weeye shaqaalaha yaraanaya waxa la qabanaya badanaya wax noocaas oo kale hadduu production company yahayna shaqaalihii baa badanaya waxa badeecada la soo saaraya baa badanaysa waa in marka aad title-ka sheegtaa markan waa inaad sheegtaa company service miya waxaan misoo production of the company number 6 marketing waa inuu jiraa qaabkaad wax xayeysiin lahayd qaabkaad suuqgeyn u samayn lahayd qaabkii saliska aad wax u gadi lahayd qaabka wax soo iibsan lahayd qaabka dadka aad uga dhaadhacsin lahayd badeecadaadii qaabka waxa weeye sales investment u samayn lahayd qaabkii dadka aad wax uga iibin lahayd dadka waxa weeye saad usoo dhaweysan lahayd sidaad waxa weeye macaamiishaad u kasban lahayd sida waxa weeye dadka waxa weeye waxaasoo dhan baa lagaga baahan yahay number 7 final request haddii uu jiro final request qodobkan muhiim maaha waana ka tegi kadhaa waana qaadan kadhaa final request wuxuu sheegayaa ama qeexayaa in investment dadka lacagaha ku siiyey haddaan waataan soo sheegnay executive summary wuu la xiriiraa dadkii shareholderska ku ahaa dadka investmentiga ahaa dadkii lacagaha baxsaday kuwii lacagaha ee kuu keenay kan hadduu 5 kun ku keenay kan hadduu 6 kun ku keenay kan hadduu 7 kun ku keenay cidda lacagaha kuu keentaba waxaa ku sameynaysaa final request xagee lacagaha ka heshaa lacagaha ma waxa weeye ma shareholderska lacagaha xagee ka heshaa ma foundation baa jira ma business kalaa jira ma central bank waad ka soo qaadataa waxaasoo dhan marka qodobkan muhiim ma waana qaadan karnaa number 8 financial projection waa inuu jira waa in aad analyzing ku samayn kartaa xaalada dhaqaale oo ku jiro company-ga waa inaad waxa weeye financial year-ka waa inaad dejisaa balance sheet-ka waa inaad dejisaa cash flow waa inaad dejisaa waa inaad income statement-ka dejisaa waa inaad samaysaa evaluation and monitoring waxa weeye xaalada dhaqaalaha ugu talagashay sanadka waxa weeye xisaab xidhka markaa samaysa maxaa ugu talagashay maxaad isleedahay waa heli kadhaa maxaa isleedahay waxa waa ku abuurmeen waxaa isleedahay xaalada dhaqaale wax ma iska bedeleen intii aad isleedahay waa gaaraysaa ma gaadhay marka waxa weeye financial projection haddii kharashaadkii aad heshay back periodkii waxyaalihii aad shirkadan gelisay iyo profitkii maxaa dibkaaga soo noqday ma faa'iidaa heshay ma khasaaraa heshay back periodkaaga nooceebu noqday haddaa faa'iida intee leeg baad heshay kharash intee leeg baad gashay kharashkii incomekii waad isbarbar dhigaysaa waxyaalihii aad gaday iyo wixii aad soo gaday waxa weye saliskii intuu ahaa iyo waxa weye iyo barjeskii wixii la iibsaday iyo waxaan la iibsan waxyaalo badan baad analyze ku sameynay marka financial year-ka balance sheet-ka income statement-ga cash flow dhaqdhaqaaqa shirkadda lacagaha bank regulation-ka waxaasoo dhan hadday jiraan cash column-ka qaabka lacagaha u baxeen qaabka usoo galayeen marka waxaasoo dhan qiimeyn baad ku sameynaysaa markaasaa waxa dhici karta in uu qofku ganacsigiisa uu goal orientation ka gaari karo haddii aad 8 qodob inta aadan bilaabin ganacsigaaga aad u samaysato business plan qorshe ganacsiyeed waxa dhici karta ama lagu